maray shakhsiyan ayaan soo bandhigayaa tusaalayaal yar oo kooban oo aan shakhsiyan anigu u arkay xaqiiqo ahaan oo aan cidi iiga waramaynin hal qiso waxay ku saabsanayd aniga oo burca markaa fadhiya waa 98 taqriiban 99 meelahaas taariikhdu ay ku beegan tahay waxaa ii yimi laba nin baa xanuunsanaya ninka kalena wuu wadaa ninka kale ee wada aad baan isu naqaanaa waa nin mutacalima oo jaamacadihii Soomaaliya ka baxay ayuu ahaa nin ay maadeeriin buu ii keenay ninkaas markaa xanuunsanaya sidoo isagu u waday ninkii markuu ii keenay quraankii ku bilaabay isagii waday baa igu dul dhacay isagii baan markaa ku mashquulay kii kale ma dhicin markaan quraankii ku bilaabay isagii baa dhacay isagii markaan quraankii ku aqriyay isagu koomu ku jira marka carabkiisa waxba ka hadlay maxaa ahaydeen gabadh baan ahay hebel baan ahay ninkan waan jeclaa sixir baan waraabiyay calooshaan u fadhiyaa sixirkii bay tiri ninkii markii uu soo miiraabay ayaan waraystoon ku yidhi caloosha ma wax xanuuna ka haya marka wuxuu yidhi hadda ayaan ka soo noqday Germany waxaanay ii sawiray caloosheeday sawireen waxay yidhaahdeen xiidmaha ayaa qayb dhani ay dhimatay waa laga goynayaa madoobaati marka wuxuu yidhi bal aan soo diyaar garoobo sidii marka ballan baan la leeyahay dhakhtarkii Jarmalka ahaa waxaan rabaa Germany inaan tago jinniyadan la soo dirtay ee loo soo dirtay inay maxabo ninkan ay jeclaysiiso waxay isu bedeshay marad inqalaba sihr wala yuflihu saahiru haythu ata waxuu isu bedelay sihr al-marad waxaana loo xidhay sihr al-mahabba in ninkan uu jeclaado naagtaan way suroobi weyday waxay isu bedeshay sihr al-marad marka waxay ii sheegeen jinkan la soo adeegsaday khaadimka ah ee sixrooluhu soo dirtay waxay noo sheegeen halkan madow ee dhaqaatiirtu aragtay annaga sawirkan sameeynayna kaliya waxaan rabnay inaan kharash gareyno oo aan rafaadino oo xidmaha bar la jaro muddaan markaa quraankii ku wadnay alxamdulillah uu raystay ilaa hadda uu shaqaystaa muhiim ah inaan magaciisa sheego niman aad saaxiib ahayn